kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan halkan waa Warsan News waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qaybtanna waxaynu ku eegi doonaa awoodda shacabka wax ka xooggan ma leh dadka awdal waa u hambalyeynaa dhismaha maamulka Awdal State oo Muqdisho looga dhawaaqay iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo loogu baaqay adkeynta midnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya tani waxay lid ku tahay jiritaanka Somaliland xogo iyo macluumaad ku saabsan ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinku soo koobo sidoo kale waxaad daawan doontaan waan idin soo gudbin doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Donald Trump jawaabtii ugu kululeed siiyay kadib dhowr jeer uu Trump aflagaado kula kacay Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa waraysi uu bixiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu arintan kaga jawaabayo Jubbaland maanta dil toogasho ayay ku fulisay askari dil u geystay askari kale hore waxaan idin soo gudbin doonaa qaabka maxkamadeyntiisa ay u dhacday iyo eedda uu wajahay askariga maanta lagu toogtay magaalada Kismaayo soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad nagu cusubtihiin ku soo biira barteena YouTube-ka ee Warsan News ka mid noqo saaxiibada inagu xiran aragtidaadana qaybta faalada ama comment kaga soo dhiibo rukumo oo subscribe saaro channel-kana si aad ula socoto wararka iyo warbixinada iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo had iyo jeer halkan aan idinku soo baahinayno hagaag aan ku bilaabo dhismaha maamulka Awdal State ayaa looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliyana lagu bogaadiyay in ay hirgeliso ilaalinta midnimada Soomaaliya iyadoo oo laga duulayo inay si toos ah garab istaag ay ugu muujiso shacabka reer Awdal oo si midaysan uga soo horjeestay tallaabadii guraacaneed ee uu qaaday ra'iisul wasaaraha gumeystaha Israa'iil ee uu Somaliland ku aqoonsaday inay tahay dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiin ka soo jeeda dhinaca gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa soo saaray baaqan la xiriira in dawladda Soomaaliya looga doonayo in ay si dhab ah ay u wajahdo dhismaha si loo ilaaliyo midnimada Soomaaliya waa dhismaha Awdal State oo dhowr jeer hore la tilmaamay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay u dhaqaaqday hase ahaatee siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada maamulka Somaliland ay soo ristaag arintan ay ku sameeyeen waxayse markan ay u muuqataa in dawladda federaalka Soomaaliya ay dhabaha u xaariso arintaasi iyadoo oo laga duulayo qorshihii ku soo xadgudubka madaxbannaanida Soomaaliya iyo difaaca madaxbannaanida dalka 26 bishii hore ee December sanadkii hore 2025 ee gumeystaha Yuhuuddu ay kula dhaqaaqeen madaxbannaanida Soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wax aan la aqbali karin waxa ay ku tilmaameen tallaabada ay hoggaanka Somaliland ku beegsanayaan dadka aragtidooda cabiray ee ku sugan deegaanada gobolka Awdal ee garab istaaga u muujiyay shacabka dulmiga lagu hayo ee dhibaatada adag wajahaya ee reer Falastiin ee ay dhibaatada ku hayaan gumeystaha Israa'iil waxaana magaaladaasi lagu xirxiray dhalinyaro Soomaaliyeed oo sita calanka Falastiin oo muujinaya dareenkooda ku qotoma inaysan raali ka ahayn marnaba tallaabada Somaliland loogu aqoonsaday dal Soomaaliya ka madax bannaan waxaana qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal oo qudhooda maanta ka hadlay qaybo ka mid ah gobolkaasi waxay muujiyeen in aysan marnaba qaadan karin arin ay ku tilmaameen in lagu cadaadinayo isla markaana iyagu si gaar ah loogu beegsanayo gobolka Awdal dhalinyarada halka ku nool in dawladdu awoodeeda isugu geysay oo ay si gaar ah ay ugu caburinayso sida ay ku doodayaan xildhibaan Abiib iyo xildhibaan kale oo ka soo jeeda isla gobolka Awdal oo warbaahinta maanta kula hadlay gobolkaasi marka la eego talaabooyinkan soo taraya ee dhinaca gobolka Awdal waxay ku riixaysaa in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay qaadato doorkeeda la xiriira hanaanka dhismaha maamulkan iyadoo oo dawladda federaalka Soomaaliya xubno ka tirsan golaha wasiirada kol hore shacabka Awdal ku booriyay in ay cabiraan dareenkooda bannaankana u soo baxaan ilaaliyaan midnimada Soomaaliya waxana ay dawladda Soomaaliya ay rumaysan tahay in shacabka Awdal ay si gaar ah ay u dulminayaan maamulka Somaliland iyadoo oo la adeegsanayo shaarka maamulkaasi waxa kale oo jirta in arintan ay qayb kaga soo aadayso xilli
xiisad xoogan ay halkaa ka jirto oo qaybo ka mid ah ay ku dagaalamayaan beesha samaroon la yiraahdo iyo si la mid ah beesha ciise oo iyana khilaaf iyo dagaal xoogan uu ka dhex jiro lana rumaysan yahay in gacmo kale ay ku laran yihiin isla markaana ay keeni karto inay soo dedejiso in loo dhaqaaqo dhabaha dhismaha maamulka Awdal State si gabi ahaanba meesha looga saaro xiisadan iyo xasradda qabiilaysan ee halkaasi ka jirta wixii macluumaad ah ee ku soo kordha dhismaha maamulka Awdal ee loogu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya wararkeena kuwan xiga ayaad ku daawan doontaan dhinaca kale haddii aynu eegnana madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa jawaab adag waxa uu ka bixiyay hadallo dhowr jeer oo hore warbaahinta uu ka jeediyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ugu gafay Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka jawaabay isla markaana falcelin lala cajabay uu ka bixiyay hadallo dhowr jeer warbaahinta uu ka jeediyay dhigiisa dalka Mareykanka Donald J Trump oo uu gafay madaxbanaanida iyo qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya Trump ayaa isagoo dhawaan ka hadlayay kulanka golaha wasiirada waxa uu sheegay in Soomaaliya ay yihiin qashin iyo in Mareykanka ay aadi doonto jiha qaldan haddii aanay sii wadno inaynu dalkeenu ku qaabilno qashinka ayuu yiri waxna hadalka madaxweynaha dalka Mareykanka sidoo kale uu ku beegsaday muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku sugan Mareykanka isagoo oo hadallo arrimo kala duwan oo uu kaga hadlayay u jeediyay bulshada kuna tilmaamay in waxba aysan soo kordhinaynin aysan doonaynin in ay dalka Mareykanka sii joogaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo markii ugu horeysay arintan ka hadlay waraysi uu siiyay telefishinka Al Arabiya waxa uu wax aan la aqbali karin uu ku tilmaamay aflagaadada cad ee Trump uu marar badan kula kacay Soomaaliya ayna ka xun yihiin dadka Soomaaliyeed si weyn ay uga falceliyeen sidoo kale waxa uu tilmaamay in guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa qab leh isla markaana uu garaadkooda uu gaarsiisan yahay meel sare oo waysan marnaba qaadan karin ficilada guracan ee Trump uu ku kacayo waxa uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax la aqbali karo ma ahan in Trump uu Soomaaliya ugu yeero qashin Soomaaliya waa dad aqli badan oo karti badan ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadallada Trump oo dhaliyay falcelino xoogan ayaa si muuqda u xambaarsan cunsuriyad iyo siyaasadeed isagoo aan ilaalinaynin sida wararku ay tibaaxayaan xeerka hadalka siyaasadeed ee rasmiga ah iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaha dalka Mareykanka oo caan ku ah hadallo soo noqnoqday ee xambaarsan cunsuriyadda ayaa dhowr jeer hore dadka madowga ah u gafay marka laga tago inuu u gafo dadka Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee madaxweyne xasan sheekh maxamuud jawaabta uu ka bixiyay hadallada naceebka ku saleysan ee Donald J Trump ayaa waxa uu durbaba ku kasbaday taageero xoogan iyadoo oo baraha bulshadana si weyn looga falcelinayo jawaabta sugan ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka bixiyay arintaas oo dhowr jeer hore villa Soomaaliya loogu baaqayay in ay ka hadlaan oo aysan ka aamusin arintan oo saameyn xoogan dunida marka la eegana ay keeni karto in dalal kale sidan oo kale ugu soo kadsoomaan madax banaanida Soomaaliya uguna soo xadgudbaan jiritaankeeda وهاجاك بلي واحد داون إنسان وركي قدام بيه سومالي دي عالم كهل كاد نجد داون إنسان وجنال كنا ورسن ليوس مركن هدي أي نو أجننا جبلان ما أنت waxay fagaaro ay ku toogteen askari ka tirsan isla ciidamada maamulkaasi oo kol hore dil halkaasi ka geystay maxkamadda ciidamada maamulka Jubbaland ayaa maanta dil joogasho ah ku fulisay marxuun Aadan Ibrahim Maxamed Macow oo ahaa askari ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada maamulka Jubbaland Ibrahim ayaa ku eedeysan in uu horay u dilay marxuun Cabdifataax Cumar Shariif oo ay ka wada tirsanayeen ciidamada ilaalada madaxtooyada maamulka Jubbaland waxa la sheegay in labadan marxuum uu kol hore uu soo kala dhaxgalay muran isla markaana ay keentay in Ibrahim uu isticmaalo Aadan Ibrahim uu isticmaalo tuuray halkaasna uu ku dilo saaxiibkiisa gacantiisa ayuuna ku baxay maxkamadda ayaa dhowr jeer hore fadhiye ka yeelatay arintan
waxaana qareenada u doodayay Ibrahim ay isku dayeen in eedan ay ka difaacaan hase ahaatee waxa ugu dambeyn la go'aamiyay in maanta tiirka la geeyo oo la fuliyo xukunkii maxkamaddu kol hore ay soo saartay ee la xiriira in dil toogasho ah lagu fuliyo eedeysanahan waxaase maanta goob fagaara oo ku taala magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland lagu toogtay Allah u naxariiste aadan Ibrahim Axmed Macow oo saaxiibkiisii hore uu dilay sidan oo kale maxkamadda maamulka Jubbaland oo jeer hore xukunna ay u riday ayaa sidan oo kale loogu fuliyay waxa ku yar Jubbaland marka la eego in magta la kala qaato iyo in gacan ku dhiglaha uu ka baxsado cadaaladda waxaana dhowr jeer hore sidan fagaarayaasha loo keenay gacan ku dhiglayaal geystay dilal oo si toos ah maxkamadda uga soo hor muuqday tiirka cadaaladana la geeyay wadku mahadsantiin dhamaadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaarteen waan idinkaga mahadcelinayaa mar kale dhammaantiinna nabadgelyo